السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacaygu waa Ibraahim Cusmaan. Muuqaalkan kooban waxaanu ku baran doonaa haddii aad wadatid mobile Samsung ah, haddii mustaqbalka ama waqtiyada dhow shaashadu kaa jabto aad xogtaadii si fudud kombiyuutarka uga gudubto, waxaan ku tusi doonaa program aad ku xidhi kartid kombiyuutarkaaga ee mobilka. Lacala beri ka maalin haddii shaashadu ay jabto aad awood u yeelan doontid inaad kombiyuutarkaaga ka xukuntid shaashada adoo isla kombiyuutarka ka furaya passwordka, isla kombiyuutarka sawirada ka qaadaya, isla kombiyuutarka settingta iyo meelaha kala duwan ee applicationka aad meel walba access u leedahay aad u gudbi kartid. Kaliya xagga kombiyuutarkan ka wada socon doonaa waxaad u baahan tahay laba software. Labada softwarena waa idinla wadaagaya qaabka kombiyuutarka loogu programinayo. Haddii aad ku cusub tahay channelka waxaan kaa codsanayaa inaad like noo saarto, sidoo kalena channelka aad noo dhahdo subscribe. hagaag iminka waxaynu ku jirnaa mobilkii aynu rabnay in aynu ka xakamayno kombiyuutarka. Marka adiga waxaa laga rabaa mobilkaagu inta uu caadiga yahay inaad kasii taxadarto oo aad option sii furato. Marka haddii aad doonaysid beri ka maalin mobilkaasi haddii xitaa shaashadu jabto ama cilad ku timaado in aad isticmaasho kombiyuutarkaagana aad ka xukunto, waa in aad sii furtaa optionkan. Waxaanu tegaynaa hoos developer optionka. Hadda dabcan aniga wuu ii furan yahay, laakiin qofkii doonaya inuu developer option furto wuxuu tegayaa about markuu tago wuxuu kusoo dhufanayaa meeshay ku qoran tahay software information. kadib meeshan ay ku qoran tahay build number ayuu la dhacaya. Aniga wuxuu leeyahay developer optionka already uu ku furan yahay. Marka build numberkaas aad la dhacaysaa dhowr jeer. Markaas saa ula dhacdid wuxuu ku dhahayaa developer optionka uu furmay. kadib waxaad soo aadaysaa banaanka settingtaada meesha u hoose waxaa ka furmay developer options. developer optionka marka gelaysaa developer optionka markaad gasho hadda dabcan uu furan yahay, hoos baad u wadaysaa inta aad ka gaarisid USB debugger. Marka hadda USB debuggerkan uu furan yahay, marka adiga saas uu ka noqonaya. marka uu xiran yahay waxa laga rabaa marka furtid inaad dhahdid okay. marka muhiimaddu waa intaa. haddii aad rabtid in kombiyuutarkaaga aad beri ka maalin mobilkaaga marka shaashadu wax kaa gaaraan ama cilad kale ku timaado waad isticmaali kari weydo inaad ka hagto ama aad ka wadato kombiyuutarkaaga, waa in developer optionka aad furatid kadib USB debuggerka aad ka dhex baadho developer optionka aad isagana furato. marka casharka inta ka dhiman kombiyuutarkan ka wadaynaa. hadda waxaynu ku jirnaa waa kombiyuutarkeena. kombiyuutarka marka waxaa loo baahan yahay in uu kugu jiro applicationka la yidhaahdo Pfizer ayaan soo furayaa. adiga hadduusan kugu jirin waxaan kuu soo dhigayaa commentiga ugu horeeya ama qaybta descriptionka. waad kala soo degi kartaa isaga iyo softwareka kale. marka Pfizer waa kay naga caawinaya in shaashada mobilkeena wixii ka dhacay aynu ka aragno kombiyuutarka. marka Pfizer waa program aad u fudud, GB-giisuna waa mid aan badnayn. isagana qaybtaas ayaan idin soo dhigaya descriptionka ka download garaysta. sidoo kale waxaynu u baahannahay waxa la yidhaahdo software la yidhaahdo screen. marka screen isagana waxaan idin soo dhigayaa qaybta descriptionka. waa ka ugu muhiimsan ee mobilka iyo isku xiriirinaya kombiyuutarka. marka screen copy-gan isaga waxaa u baahan tahay ama u baahannahay in aynu koobiyeyno. markaad la soo degtid dabcan siibad buu ku jira, hadhowna siibad waa ka saari doontaan. markaad la soo degtid waxaad tegaysaa C, kadib C markaa Cda tegaysaa. isaga ayaa waxaa leedahay right click kadib paste. waad ku paste garanaysaa. marka waxaa la rabaa in folderka uu ku jiro softwareka. marka maxaynu u baahannahay marka koowaad softwareka la yidhaahdo Pfizer oo wixii shaashada mobilka ka dhacayay ayuu naga tusayaa kombiyuutarka. kan labaad aynu u baahannahay isna waa screen, isna waxaa la dhigayaa Cda. markan waxaanu u baahannahay inaynu soo furno marka shaashada la yidhaahdo CMD ama command prompt. CAD-da markaan soo furno kaliya koodharkan qorayno waxaan rabaa in qof walba oo casharkan raba inuu sameeyo isaguna uu halkaa ka barto. aan idiin soo dhaweeyay. marka waxaan u baahanaa inaan qorno kow waxaynu qoraynaa CD kadib space laba dhibcood enter baan leenahay. marka koowaad waxaa qoraysaa CD space laba dhibcood, haddana intii oo kale aad ku celinaysaa waxaa leedahay CD space laba dhibcood enter baan leedahay. mar saddexaadka marka waxaa u baahan tahay inaad qorto CD space screen oo esta hore weyn tahay ama esta hore capital tahay kadib enter baan leedahay. intaa markaa qorto koodhka haddana waxaa noogu xigaya ADB space devices baad qoraysaa. ADB devices markaa qortidna waxaa leedahay enter baan leedahay. marka hadda waxaad arkaysaa inuu wado serverkii ayuu u gudbayaa. marka halkan wuxuu kusoo qorayaa daemon started successfully, waa lagu guuleystay. marka kaas waa intaas. kadib waxaan qoraynaa SCRCBY oo loo soo gaabiyey screen copy. kadib waxaan leenahay enter. marka waa sugaysaa. halkan oo kale wuxuu soo qoraa doesn't match, laakiin waa kan sidaas marka hadda kusoo gudbay. isagoo xogta markuu soo qoro mar alaala markuu xogta soo qoro waxaynu tegaynaa marka softwarekeena
Pfizer baan soo geli doonaa. Waxaa arkaysaan inuu soo qabsaday oo uu yahay qaabka uu yahay. Okay, marka adigu aad qortid intan uu ku soo saaro screen copy aad qortid no device emulator found buu maadaama uusan ugu jirin USB. Marka haddaan koorkii ku celiyo intii aan enter dhaho waa sugaysaa wax yar kadib waa kan xogtan oo dhan soo saaraya. Okay, marka xogtaas oo dhan soo saaraya sidaa darteed uu soo qabsanaya screen copy markaa qortid isaga ayaa soo qabsanaya. waa kan protocolkii iyo wixii sidaas ayuu markaa ku gudbaya. marka waxaan sameynaynaa waxaan gelinaynaa Pfizer kadib calaamadan Pfizer baan gelinaynaa kadib waxaan ku dhufanaynaa calaamadda oo maadaama mobilka inuu soo qoray aan horaan ugu qortay magaca laakiin waxaan dhahaynaa calaamadaas view device ayaan ku dhufanaynaa. marka halkan waxaad ka arkaysaan inuu keenay mobilkiinii. haddaan halkan idin ka tuso mobilka waa kan waxaan gelinayaa shaashadan deminayaa bartan mobilka haddaan halkan computerkan idhaahdo kaa 2 jeer ku dhufto uu soo furaya. haddaan rabo inaan ka furo passwordka aanon mobilka taaban aan passwordka furo sidaan aan leeyahay kor baan usoo kicinayaa kadib computerkayga ayaa waxaan qorayaa waad arkaysaan marka inay isku wax ku dhacayaan passwordkana waxaan ka qorayaa xagga keyboardka ayaan ka qorayaa markaan zero-ga taabto xitaa ka kadib enter markaan dhaho furaya. marka applicationka halkaas ayaan ka wadwadaya anoo bahalkayga taabanaya. dabcan tan halkan idiin soo dhigo oo kale tusaale ahaan aan sida halkan idinka tuso mobilka password baan ku xidhayaa kadib halkaas ayaan ka furayaa sidan markuu yahay marka pinkiina waa kan. okay, hadda la wada arkayaa saan rajeynayo marka passwordka halkaasaan ka gelinayaa uu isbedelaya marka uu qormayaa kadib enter baan leeyahay saas ku furmayaa. haddaan rabo mouse-ka inaan ka bedelo aan halkan shaashada ka xukumana bartan ayaan ka dhaqdhaqaajinayaa oo moolkii soconaya meel kasta aan u baahanahay waan geli karaa hadday tahay setting iyo hadday wax kala tahay. haddaan u baahdo inaan sawir qaado xitaa kamaradiisa waan geli karaa kadib kan ayaan ku dhufan karaa. okay, sidaa ayaan marka kamaradan aan ku qaaday xagga sare soo qabtay. marka qaabkan ayuu u shaqeeyaa systemku. halkaas ayuu marka cashirkeenu intaas ku saabsanaa. kaliya waxaad samaynaysaa waxaad la soo degaysaa softwareka la yidhahdo Pfizer. sidoo kale waxaad la soo degaysaa applicationka screen copy. labadoodaba waxaan idiin dhigayaa qaybta hoose ee descriptionka. daawada marka haddaan nagu cusub tahay markale waxaan xasuusinaya inaad subscribe noo siiso si aanu ku dhiirano inaanu meel sare gaarno. dabcan mar kale Ibraahim Cismaan oo idin leh aad baa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.